بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan idin salaamaya walaalahayga Soomaaliyeed meel walba aad ku sugan tihiin dacallada dunida. Waa walaalkiin Axmed Daawud oo idinla wadaagi doona information kooban oo ku saabsan campaign caalamiya, fursad caalamiya oo runtii soo gaadhay ummadda Soomaaliyeed, geyga Soomaaliyeed, guud ahaan caalamka oo dhan uu ka faa'iideystay baan idinla wadaagi doona insha Allah. Campaign-ga ama fursadan ganacsi ee maanta idin wado idinla wadaagi doona insha Allah. waxaan u kala qaadi doonaa saddex qaybood oo waaweyn si aad ila fahantaan. saddexda qaybood waxay kala noqonayaan qodobka koobaad waa history-ga shirkadan Forever Living Product, taariikhdii la aasaasay, goortii inaga aynu soo gaadhay, inta sano aan ku shaqaynayno. waxaynu isla eegi doonaa sidoo kale wax soo saarkeeda, alaabaha shirkadan ay soo saarto, inta qaybood iyaguna ay ka kooban yihiin baan isla eegi doonaa. sidoo kale waxaan aad u falanqayn doonaa kusoo biiritaanka company-gan iyo qofku marka uu xubin ka noqonayo shuruudaha laga doonayo inuu buuxiyo. waayahay haddaba shirkadan waa shirkad runtii caalamiya, magaceeduna waa Forever Living Product. company-ga Forever runtii anagu aanu ka howlgallo, inagana ina soo gaadhay, geyga Soomaaliyeedna inoogu yimid. waa shirkad Maraykan, waxaa la aasaasay 1978 laga soo bilaabo 1978 iyo maanta aynu joogno 2020. waa shirkad ku shaqaynaysay 42 sannadood adduunweynaha. shirkadaas 42 sannadood ku shaqaynaysay waxaa laga leeyahay waddanka Maraykanka, gaar ahaan Arizona ayay ka soo jeedaa. maasha Allah, inaga waxay shirkadan inaga soo gaadhay ama inaga timid Middle East-ga ama bariga dhexe, gaar ahaan Khaliijka, United Arab Emirates, waddankaas Dubai ayay inaga timid. maasha Allah, 1999 bay Dubai soo degtay ilaa maanta. waa shirkad weyn oo ku sugan magaalada Abu Dhabi iyo Dubai iyo sidoo kale Sharjah, xarumo waaweyn ku leh. dabcan geyga Soomaaliyeed magaalada ay ugu soo horeysay ee hadda center ay ku leedahay waa magaalada Hargeysa. geyga Somaliland gaar ahaan Hargeysa weeyi, xarunta ugu weyn ee geeska Afrika looga adeega waa Hargeysa. waxaynu hadda ku shaqaynaynaa xarunta Forever Living Product 3 sano iyo wax yar baynu ku shaqaynaynaa. maasha Allah, maadaama aynu 3 sano iyo wax yar ku shaqaynayno, aniga ka Axmed Daawud ahaan waxaan xoogogaal u ahay ama shirkadan aan ku hawlgeliyay muddo 2 sano ah. maadaama 2 sanadood shirkadan ka shaqaynayay, way arag, khibrad, sidoo kale fikir kastoo looga baahdo waa mid aan la wadaagi karo ummadayda Soomaaliyeed. hadday noqonayso dhaqaalahan ka sameeyay, hadday noqonayso nolosha iga suura gashay, hadday noqonayso halka aan u socdo hadda aan hiigsanayo, intaba waan la wadaagi doonaa insha Allah. haddaba shirkadan markaynu history-ga intaa kusoo koobno, dabcan Somaliland ama Hargeysa waxay u adeegtaa centerka Forever ee magaalada Hargeysa. waxa uu u adeegaa geeska Afrika oo dhan. Djibouti, magaalada Djibouti inaga alaabta u dirna. sidoo kale magaalada Ethiopia, waddanka Ethiopia inaga alaabta u dirna. sidoo kale koonfurta Soomaaliya oo dhan Hargeysa looga adeega. waa centerkii xafiiska Forever Living Product ee Hargeysa, oo Hargeysa ayuu ku yaala. gaar ahaan xarunteena ugu weyn ee adeega oo dhan waxay ku taalaa magaalada Jigjiga ayay ku taalaa. sidoo kale xarumaha tababarku suuqa hoose ee Hargeysa ayay ku yaalaan. maasha Allah, haddaba waa maxay wax soo saarka company-gan Forever uu caanka ku yahay ee adduunweynaha uu iibgeeyo, dadkoo dhanna ay ka faa'iideystaan? alaabta shirkadu ay soo saartaa guud ahaan waa alaab dabiici ah oo herbal ah, oo guud ahaan alaab dabiici ah oo laga sameeyay dhirta qaybaheedii kala duwanaa weyn. maadaama shirkadda wax soo saarkeedu uu dabiici yahay, alaab herbalana ay tahay, waa 3 qaybood oo waaweyn adeegeenu. maadaama adeegeenu 3 qaybood oo waaweyn uu yahay, qaybta ugu horeysa waa qayb loo yaqaano cosmetics, alaab la isku qurxiyo oo dabiici ah oo runtii hableennii Soomaaliyeed aan oga keenay una soo runtii jiidnay alaabta tayada leh. guud ahaan waxay ka shaqaynayaan wejigii, daryeelkii wejiga, maqaarka wejiga oo dhan. waxaa jira qaybo ka shaqeeya timaha, daryeelka timihii oo dhan. qaybo waxaa jira ka shaqeeya sidoo kale body creamskii oo dhan lagu dhaashanay, creamyadii wejiga ama jirka la marinayay. guud ahaan cadaradii kala duwanaa, colgate-yadii, libisyadii kala duwanaa, debnaha. guud ahaan adeega inagu aynu haynaa waa alaabta qaybta koobaad waa cosmetics, alaab la isku qurxiyo oo dabiici ah. qaybta labaad adeega shirkadu ay hayso waa alaab loo yaqaano supplementary, waana caafimaad. guud ahaan qaybta food supplementary-gu waxay iyaguna xallinayaan oo ay qayb dhexaadle ka qaadanayaan ummadeena Soomaaliyeed, waalidkeen, hooyooyinkeen, aabayaasheen, awyaasheen iyo guud ahaan dhalinyaraduba inay caafimaadkoodii ku daryeelaan, ka hortagna ay u isticmaalaan, ka dabatagna way u isticmaali karaan. guud ahaan adeega dabiiciga ee shirkadu hayso qaybta caafimaadku, maasha Allah, lafaha lagu daweeyaa, waa qaybihii curuqda oo dhan baa ku jira. waxaa lagu dabeebaa qaybtii gaasta, uurku jirta oo dhan, nabaradii iyo babaasiirkii iyo ciladahaas oo dhan bay xalinayaan qaarkood. waxaa ku jira qaybo iyagana loogu talagalay awoodsiinta caruurta oo kale, abateedkii, cuntadii inay u furaan, sidoo kale inay ka qayb qaataan dhumucda laftoodii, koritaankoodii inay ka qayb galaan. waxaa jira sidoo kale qayb loogu talagalay hormoneska ama fertility-ga
oo maasha allah shirkadeenu qaybta hormoniska awood badan bay ku leedahay guud ahaan adduunka oo dhan gaar ahaan bariga Afrika iyo geeska Afrikaba waxaan anigu runtii la shaqeeyaa oo aan xoogaal u ahay dhakhaatiir waaweyn oo reer Nairobi oo runtii Kenyatta oo alaabteena qaybta fertility-ga si maalin walba u qoro dadkooda sababtoo ah awood badan bay leeyihiin waxay ka caawinayaan qaybaha loo yaqaano hormoniska sidoo kale khalkhalkii bay ka ilaalinayaan dadka dumarka oo kale qaybo waxaa jira iyaguna xalinaya infectionski oo dhan dhiigga ka saaraya jidhka saaraya qaybo waxaa jira ugxanta korinaya oo awoodsiina maasha allah dad badan baa ilaahay awlaad ku kala siiyey qaar kalena waxaan u rajaynaya inuu ilaahay ku guuleeyo markay alaabtan sidii loogu talagalay u qaataan qaybta ugu dambaysa adeegeena waa qaybta miisaanka kordhisa ama miisaanka lagu dhimo guud ahaan shirkadeenu waxay haysaa alaabo miisaanka lagu dhimo ama miisaanka lagu kordhiyo oo iyaduna isku dheeli tiran oo dabiiciya waa cuntooyin la cabayo ama la cunayo maaha wax suun oo la xidhanayo dab la gelinayo qofka dhibaato ku keeni kara maaha sidaa darteed adeegeenu maadaama guud ahaan dabiici yahay dhirta qaybaheedii kala duwanaana laga sameeyey geedka ugu caansan ee shirkadeenu ay wax ka samaysaa waa geedka dacarta loo yaqaano aloe vera ama geedka aloe la yidhaahdo weeye geedka dacarta shirkadeenu caan ku tahay tan waa koolgeedeedii waa macjuuntii ilkaha infectioniskii irdhiigii ilkihii qodmayey ilkihii burburayey waayo no fluoride suntii ilkaha dilaysay kuma jirta iyada sidoo kale waxay aada ugu wanaagsan tahay inuu xalliyo dhibaatooyinkaas oo dhan sidaa darteed maadaama shirkadeenu markaa caan ku tahay geedka dacarta loo yaqaano alaabteeda oo dhan laga sameeyo geedka dacarta malabkii afakaadhadii iyo qombihii iyo sidoo kale fiberka cuntadii gaska lahayd ama baalka lahayd guud ahaan dadkeenu waa u baahan yahay alaabtan dabiiciga ee aynu uga faa'iideyno sidoo kale haddaba qofku markuu alaabtii fahmo shirkadiina uu garto inay baac mushtar tahay oo ay faa'iido doon tahay oo cid waliba ay la shaqaysan karayso sidee laynoogu soo biiraa waa qodobada ugu muhiimsan ee dul istaagi doono qof kasta oo danaynaya inuu nala shaqaysto oo shirkadeena kusoo biirayo oo ganacsado ah oo raba inuu faa'iido ka sameeyo alaabtan waxaa laga rabaa inuu marka hore xubin noqdo oo shirkadii uu kusoo biiro waxaa laga doonaya qofka isdiiwaangelin wax la yidhaha isdiiwaangelintu qofku markuu nagu soo biirayo shirkadda Forefa qayb ka noqonayo si bilaasha oo lacag la-aana ayuu qofku nagu soo biiraa qofku waxaa laga rabaayo keliya personal informationkiisa xogtiisa shakhsiga inuu noo soo gudbiyo markaad ii soo gudbiso xogtaadii shakhsiga ahayd magacaaga saddexan telephone numberkaaga gmailkaaga da'daada magaaladaad joogto markaad intaa noo soo gudbiso diiwaangelintii waa possible waan ku diiwaangelinaya markiiba waa online system shirkadeedu markaan ku diiwaangeliyo markiiba gmailkaaga waxaad ka heli soo dhaweyntii companiga iyo weliba hambalyadii companiga iyo ID-ga aad ku shaqaysanaysa qofku hadduu membership ka helo oo ID-ga membership-ka uu qaato micnaheedu waxa weeye waa xubin anigoo kala ah shirkadiina uu kusoo biiray trainingkii baan hore uga bilownaa tababarkii aqoon kororsigii baan hore uga bilownaa maadaama aqoon kororsiguna uu free yahay online tababarada waad nagula qaadan si toosana tababarada waanu kuu siin labada jeerba diyaar baanu kuu nahay waana lacag la-aan trainingkuna qofkii marka uu nagu soo biiro shirkadii tababarkiina uu qaato qodob saddexaad baa jira oo ah haddaba shirkadii ka shaqaysiiyo alaabteedii kala iibiyo dee la shaqayso ha u shaqaynin Forefa la shaqayso oo adiga ikhtiyaarka ugu soo biir adigoo shaqo kala haysta shirkadeena waad la shaqaysan karaysaa party time-kaaga saacadaha ku soo hadha adigoo wax barto ardaya party time-kaaga saacadaha ku soo hadha dhaqaale waad ka samayn karaysaayo waad nala shaqaysan karaysaa adigoo hooyaa oo guri jooga ama aabba oo mashquulkaagu badan yihin saacadaha kuu soo hadha haddaad waqti geliso Forefa waxaan hubaa inaad dhaqaale fiican ka samayn karayso mid maalinla ah mid bila ah iyo mid sanadla ahba sidaa darteed qofku marka uu nagu soo biiro waa si freeya marka traininga la siiyo waa free isaguna aqoon kororsigu isagoo kuu socda ayaad alaabtiinii market garaynaysaa oo iib geynaysaa micnaheedu waxa weeye haddaad dukaan uu kuu furnaana alaabtii baad shirkadii kasoo iibsan Forefa dukaankaagii baad dhigan discount qiimo dhimis baa lagugu samayn adiga 5% qofku marka uu nagu soo biiro ee uu shirkadeennii kusoo biiro waxa uu leeyahay qiimo dhimis 5% ah waayo new customer baa tahay referral customer baa tahayo weli waad nagu cusub tahayo aqoon kororsigii baa kuu socdo ganacsigiina waad bilaabaysaayo maadaama markaad nagu cusub tahay shirkaddu waxay ku leedahay kusoo biiritaankaaga qiimo dhimis baan kuu sameeyey 5% maadaama aynu haysano 5% laakiin qiimo dhimistu ay ka badan karto intaa doontaad socon karayso waxay ku leedahay shirkaddu alaab gaadhaysa 490 iibso ama kala iibi labada qodob baa isku xidhan macnaha qofku ikhtiyaar buu leeyahay inuu shirkadiisi bilaasha ugu soo biiro kadibna uu la ganacsado alaab baad ka soo iibsan Forefa $100 hadday noqonayso hadday $10,000 noqonayso iyo hadday noqonayso $75 waa adiga awoodaada ganacsiga markaad ku soo biirtaan waxa laga bilaabanayaa $75 wayna ognahayo qofka hadduu ganacsi kala furays yiraahdo dibadda banaanka mar walba ganacsiga expense kharashaad baa lagu bilowdaaye faa'iido laguma bilaabo
sidaa darteed ganacsigeennan waxaa laga bilaabayaa oo ugu yaray waa $75 maxaa ugu fiican $490 inaad ka bilaabataan. haddaba haddii aad shirkadeennii $490 oo alaaba ka soo gadataan oo 5% laydinka dhima idinka customerkii faa'iidaad ka helaysaanoo macaash baad saaran karaysaan alaabta. waay maadaama ood alaabta macaash saaranayso hadday $600 kuu noqoto iyo hadday $500 iyo dheeraad kuu noqotaba waa alaabaad soo iibsatayoo dib baad usii iibinaysaayo adigaa suuq gelinaya macaashna waad ka samayn. qofkii awoodi waaye haddaba inuu isagu jeebkiisii ka iibsado alaab oo shirkaddii intuu yimaado alaab ka soo dalbado waxaa loo ogol yahay inuu Facebook page samaysto oo WhatsApp page samaysto, Instagram page samaysto, YouTube channel uu samaysto oo alaabtii sawiradeedii oo dhan aan u soo dirno, fiidiyoyadii oo dhan loo soo diro oo halka ku iibiyo marka alaabteeni. micnaheedu waxa way xayisiis baad samayn, macmiil kasto kula soo hadla xarunta keen wuxuu iibsada adaa lagu qoraya marka adaa iibiyay baa lagu oranayaayo waa lagu diiwaan gelinaya marka iibka. sidaana waad ku dhamayn kartaa inaad macaamiishaadii kolba la kulanto, waqti u samayso, alaabtii bandhigto, markay ku yimaadaan wax lagaaga iibiyo adun baa lagu ururinaya. $100 hadaad iibiso 490 waa lagaa jaraya, 390 baa kugu haray. haddana 200 oo alaabaad iibisay, 290 baa kugu haray. haddana $100 oo kale alaabaad iibisay. mar walood wax ka iibso kambaniga dhexdiisa xisaabtaas balaas baa loo dhan waa lagu geenaya minus bay gelaysaa oo lacagtii markii hore lagaa doonayay waa lagaa jaraya 0 markaad ka dhigto. maasha Allah 490 haddii aad dalbato oo micnaheedu 2 bilood baad chance haysataaye 2 bilood bay shirkadu chance ku siisay. haddaad 490 iibisay micnaheedu waxa weeye qiimo dhimistaadii baa isbedeli hadeed alaabtii way kuu sii jabi oo 30% baa lagaa dhimay alaabteena oo dhan. 30% ayaa alaabtii forever dhan lagaa dhimay. waay maadaama qiimo dhimis fiican ku haysato haddaad haddana mar labaad alaab kala dalbato macaash badan baad ka samayno customer price isagu go'an qiimaha macmiilka lagaga sii iibiyaa waa xadidan yahay isagu oo waa go'an yahayo suuqa anigoo 50% maraya iyo adigoo 30% maraya isku mid un baynu suuqa wax kaga iibinaa oo suuqa alaabta aynu gelinayno qiimuhu waa same laakiin waxaynu ku kala duwanahay un qofka imika cusub ee 5% maraya, qofkii hore u sii joogay ee 30% marayay, qofkii 50% marayay. qiimo dhimista inagu gaadhnay baan ku kala duwanahay laakiin qiimaha price-ka suuqa aan kaga iibinaa waa same oo waa isku mid. waay maadaama 30% gaadhay shirkaddu waxay ku leedahay hadda waxaa kuu suuragala levelkii koowaad waad gaadhay oo waxaa loo yaqaanaa assistant supervisor. levelkii koowaad ee kambanigeena waad gaadhay hambalya bay ku leedahay. waxaa hadda kuu suuragala inaad team cusub dhisto. maadaama team cusub dhisaysana waxay ku leedahay mobilkaaga imso qof baa ku jira, classmate-kii, friendskaagii, relative-kaagii, social media oo dhan. waxaa jira dad badan oo iyaguna u baahan inay ganacsigan ku soo biiraan oo ay ganacsigan ka faa'iideystaan adaa u bandhigay. waad noo keeni warbixintii baa lagu siin, shirkadii baa ayay ku qanci doonaan. hadday ku qancaan waa tiimkaagii. wax kastoy kala iibiyaan oo iyagana tacabkoodii ay geliyaan shirkadda alaabtoodii bay qaadan, qiimo dhimis baa loogu samayn, laakiin alaabta ay iibsadeen baa adiga faa'iido lagaa siinaya. boqolkiiba kolba levelkaad marayso iyo levelka iyagu marayaan ayaa la kala gooyaa. micnaheedu waxa weeye haddaad assistant supervisor tood 30% lahayd micnaheedu waxa weeye 5% baad ka heli 5% qof kasta oo markaa kusoo biira tiimkaaga oo tiimkaaga noqday ayay ka dhiganta. waay 35% iyo waxaa la kala gooyin doonaa 5% oo 25 30% ha 30% ayaa shirkadda xaggeeda lacag faa'iido dhan lagu soo celinaya bishii. hadday tiimkaagu 5 qof noqdaan oo 5tiiba ay ganacsi iibsadaan, alaab iibsadaan oo laakiin adigu aad ku tacabtay, waqti gelisay, tababartay, micnaheedu waxa weeyaan percentage baad bishaa heli 30% oo u dhigma ilaa iyo hadday tiimkaagu 5 qof ahaayeen tusaale ahaan oo 5tiiba min 490 iibsadeen waa $130 waa ilaa 600 iyo dheeraad lacaga oo faa'iidaha bishaa u xaadiri. waa adigii dadaalka iyo tacabka iyo tiimkaagu siday kula shaqeeyaan. haddaba tiimkaygii ma sii badin karaa? ha adigoo ganacsiga isagoo kuu socda oo alaabtii aad kala iibinayso oo meheradaadii kuu furan tahay, tii tooska ahayd iyo tii online-ka ahayd labadiiba ay kuu shaqaynayaan baad qorshihii tiimkana ku shaqayn doontaayo haddii tiimkiina aad ka shaqaysiiso waa macaash labaad oo faa'iido shirkaddu bishii ku siinayso. tiimkaagii baad caawin doontaa. hadday iyagu 12 qof noqdaan isku darkooda maasha Allah adiga supervisor baad u guuri, qiimo dhimistaadu 38% bay noqon, iyaguna 30% bay iman doonaan. maadaama 38% heshay supervisor baad ka soo bixi hambalyo. shirkaddu waxay ku leedahay haddii aad supervisor soo gaadhay dakhliga bisha aad ka helaysa kambanigu waa 700 ilaa 800 buu dhaxay 500 ilaa 800 oo dollar buu dhaxayn doonaa. tiimkaagii laba kamid hadday soo dadaalaan oo tacab adiguna aad geliso tiimkaagii oo dhan oo laba kamid ay iibiyaan iib gaadhaya 25cc 50cc ay keenaan
oo isku darkiina aad 75 heshaan adigu assistant manager baad noqonoo 43% ayaa alaabtii oo dhan lagaa dhimi. haddaad 43% qiimo dhimisa gaadhay dakhligaaga bishaas wuxuu noqon doonaa 1000 ilaa 1400 buu dhaxayn doonaa. waa qof iyo dadaalkii iyo tacabkii iyo levelka uu soo gaadho. maadaama badan aad kala samaynaysaan adiga iyo farcaagii baad caawin, waqti badan baad gelin, waad la shaqayni, waad tababari doontaa, kadibna tiimkaagii markastoo ay sii bataan oo tacabka ay shirkadii gashanayaan sii ballaadho oo adigu tacabka aad iyaga gelinaysaa uu sii bato, dakhligaagii baa kori doona, qiimo dhimistaadina way kori doontaa oo aad baa alaabtii lagaaga dhimi doonaa wax badan. haddaba maadaama ay tiimkaagii laba ka mid yimaadaan assistant manager, dakhligii aad qaadanaysay oo kalena ay soo gaadheen, waxaad gaadhi doontaa wax la yidhaahdo 50% qiimo dhimisa, 48% manager. qofka hadduu manager soo galo qiimo dhimistiisu waa 48%, alaabtoo dhan kala badh baa lagugu siin, 50-50 baa lagaa dhimi alaabtoo dhan, macaash badan baad ka samayn alaabta, dakhligaaguna 2,000 ilaa 3,000 oo dollar buu bishii u dhaxaynaya. maadaama shirkadeena ku ogoshay faa'iido dhan 2,000 ilaa 3,000 oo dollar, duruufahaagii nololeed oo dhan baad xallin kartaa. marka waxaad xallin karaysaa duruufahaagii nololeed oo dhan, duruufahaagii shakhsi oo dhan, kuwii qoyska oo dhan. waayo qof dhalinyaro 2,000 ilaa 3,000 qaadanaya, waxaan garanayaa dad aad u fara badan oo geyga Soomaaliyeed inala jooga oo shirkadeena muddo yaroo kooban wada, qaarkood 4 bilood, qaarkood 6 bilood, oo levelkan ku gaadha 4 bilood iyo 6 biloodba, oo dakhligooda 2,000 ilaa 3,000 u dhexeeyo, rag iyo dumarba leh. halkaa markaad soo gaadhaan qiimo dhimistiinii halkaa ma dhaafayso, waa 48%, waa halkii ugu sarraysay. waad kala qaybsanaysaan kambaniga alaabtiisii. halkaa waxaa ka bilaabmi doona wax la yidhaahdo halkaa ka bilaabmaya la yidhaahdo abaalmarintii sanadlaha ahayd. waa dalxiisyo 2 jeer sanad walba, waa abaalmarin gaadhi oo sanad walba 3 gaadhiya, waa jeeg lacageed oo abaalmarina oo sanad walba shirkadeenu bixiso oo qofku ku guuleysan karo. alxamdulilah, dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro waddankeena inala jooga ayaa suuro geliyay inay ku guuleystaan dalxiisyada, ku guuleystaan gawaadhida, ku guuleystaan sidoo kale jeega lacagta abaalmarinta. leefaladu intaa way kasii badan yihiin, laakiin waxaan intaa kusoo koobayaa warbixintii kambaniga Forever Living Product. kusoo dhawaada, wixii kale faahfaahina diyaar baan idinla nahay insha Allah. waan idin soo dhaweynaynaa, wada shaqayn waxaan